sida ogtihiin meesha Soomaaliya la dhahayo maalmahan doorasho baa ka jirta waxaa loo ololeynayaa doorashada oo dhici doonta bisha soo socota November waatan fiisada dhinaca Bariton isla markaasina lulayay caleemo qoyan iyo calanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ugu dambeyntii waxaa loo soo galbiyay goob fagaaraha wafdiga hogaaminaya murashaxo halkaas oo kala hadlay shacbiga reer Gabiley ee u soo baxay soo dhaweyntiisa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee ku matala gobolka Gabiley oo hogaaminayo xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka marka meeshaas waxa weeye meesha Soomaaliya la dhahayo waxyaala ay Soomaaliya inta kale ugu fiicanta waxa weeye doorasho baa ka jirta doorashadaas muddo dheer baa la soo waday laakiinse dhibka jirta waxa weeye reer Soomaaliland oo dhan bahasha doorashada la dhahayo ma bisla arrintaas marka reer Soomaaliland waxa weeye arrintan ama fikradan oo ah doorasho qof fiicada oo arrin loo bisilaya ma dad weynaha uma bisla dadka madaxda ah oo tartamay jawooyinkan uma bisla marka waxa weeye wax la iska dhayo propaganda maaha oo cadeynteeda inta ku arkayna indhiina ku arkaysaan idina ku maqlaysaan marka adduun kale hadaa u fiirsatid dadka oo u tartamay jawooyinka waxa weeye markii ay cod dadka rabaan oo kale inay cod ka helaan dadweynaha waxa weeye dadweynaha soo istaagayaan dadkii waxay dhahayaan waxaas idinka ballan qaadaya aniga codka siiya waxaas idinka ballan qaadaya aniga codka siiya saas bay dadku dhahaan markaas waxa weeye caado bixi ka tahay Yurub ka tahay caado bixi ka tahay Mareykanka iyo meelaha kale ay ka dhacdo doorasho oo qof iyo cod marka meelahaas kale oo saas ay xisbiyadu shaqeeyaan dadweynaha caadiga oo odaynay xisbiyadaas waxa weeye xisbi walba wuxuu ballan qaadayo dadku way ogyihiin oo shaki kuma jiro yaa hadda Trump oo kale fiirsado Trump baa inta wuxuu ka ballan qaadayo dadka wuxuu u qaban lahaa asaga hadii la doorto. Here is the deal that I will be offering to every major company and manufacturer within our country. I will give you the lowest taxes, the lowest energy costs. I will cut your energy in half. The lowest regulatory burden and free access to the best and biggest market on the planet Earth, but only if you make your product here in America and hire American workers for the job. You know, markaas maqlayseen halkaas Trump ninka la hayo waxa weeye jawaab wuxuu tartamaya jagada madaxnimada Mareykanka markaas halkaas maqlayseen wuxuu shirkadaha oo warshadaha wuxuu ka ballan qaaday in canshuurta uu ka yareynayo in uu kharashka korontada uu ka yareynayo haddii ay shaqooyinka ay u soo raraan Mareykanka oo dadkii Mareykanka ay shaqaaleysiiyaan oo markaas shirkadahaas buu canshuurta ka yareynaya marka dadweynaha kale dadka cod raadinaya dadkii waxa weeye wax cad bay ka ballan qaadaan oo ballan qaad oo cad oo shaki ku jirin beesas kale dadku la soo istaagan laakiin dhibka Soomaaliland ka jirta waxa weeye dadka maanta oo madaxda ah oo joogayn ku tartamaya marka dadku soo istaagan waxa weeye dadkii waxba ka ballan qaadaan marka dadkii markii la soo istaago waxa weeye waxa lagu hadlaa hadal oo nacnaa oo aan macno lahayn baa lagu hadlaa hadda fiirsada ninkan wuxuu ku hadlayo wuxuu ku hadlayaa hadal nacnaa oo caruuraya buu ku hadlayaa ninkaasna waxa weeye wuxuu ka mid yahay dadka oo joogayn ku tartamaya oo Soomaaliland oo halkaas wuxuu u soo istaagay inuu dadka cod weydiisto waa beesha kaliya ee deegaankan xisbiga wadani aanu xaflad u qaban saasaan leeyahay Soomaa wada ku bishaaraysto marka wadana ay caawa xafladan arkaan xaflad beeshana degdeg bay u qaban doonaan iyagoo qof iyo laba raadin doona meel walba qof iyo laba lagama waayo marka qof iyo laba beeshana intay raadiyaan ee dabadeedna lagu soo guro basasiyo safari ayaa la oran doonaa beeshii waxay soo gashay waad mahadsantiin eeg beeshani maanta lama laha xisbiga kulmiye soo gashay miyaa la leeyahay lama laha laakiin beeshani xisbiga kulmiye ka mid ahayd Soomaa weligeed ma ka mid ahayd hambaliya leeyahay walaaladeen xisbiga wadanina waxba yeynaan u diidin marka ay safariga dadka ku soo gurayaan waxba u diidina waayo dad bay laayihiin marka way ku qasban yihiin inay safari ku soo guraan uma diidanin beelaheena Soomaaliland beeshay 5 qof ka helaan 10 qof ka helaan 20 ka helaan loo diidi maayo laakiin magaca beeshaas oo dhan baa xisbiga soo gashay kulli run maaha Soomaaha hadana ninkan kala inta ka arkayno waxa weeye dadkii been buu sheegaya been cad buu sheegaya oo waxaan aqliga galin buu dadka ballan qaadaya
yaa hadduu fursada odaygan inta ku arkayno ictiraaf aan dhacayn oo weligeed dhacayn buu halkaas dadkii ka ballan qaadaya oo haddana intaas ictiraaf keliya haddana intaas keliya xitaa dhib kuma eka xitaa dadkii buu cadownimo ka dhex beeraya shaydaan wey yaa marka ictiraaf somaliland odayaal jooga somaliland ictiraaf waxaa laga raadinayay soomaaliya sida xornimadu qaatay 1960 ilaa maanta baa ictiraaf laga raadinayay halkaas yaa marka wax oo aan caqli gelin oo been ah baa dadkii lala hortagaya fursada waa kana dhegeysta walaalahay haddaynu nahay reer somaliland maanta haddaynu nahay cadow badan baynu leenahay cadowgaa badan aynu leenahay waxaa loo baahan yahay inuu babac dhigi karaa looma baahnan in looga taliyo meelaha aynu garanayno kaasina waa Muuse Biixi soo halgamay dalkan la soo maray dhibaatooyin maantana aqoonsigii gacantiisa ku keenaya marka ninkan Muuse Biixi ah maanta nasiib u leeyahay haddii aan la soo qaban oo maxkamadda United Nationska oo haddii aan la soo horstaajin uu nasiib leeyahay iska daa inuu ictiraaf keeno in maxkamadan la keeno buu nasiib leeyahay yaa in halkaas la keenin nasiib leeyahay asaga iyo odayaal kale oo ku xiran khaatamo hadana dhib kale jirta haween dadweynaha oo Somaliland reer Somaliland ma fahamsana xisbiyada oo u tartamaya jagooyinka fikradaha ku shaqeeyaan yaa dadweynaha kala daaw fiirsatid xisbiyada u tartamaya jagooyinka fikradooyin bay ku shaqeeyaan yaa ideology wax loo ku shaqeeyaan marka xisbiyada oo kale oo ninkan iyo waxa la midka ninkan inta wajidaan waa ra'iisul wasaare hore oo Netherlands way marka asaga xisbigiisa waxa way liberalism way fikradu ku shaqeeya yaa ku shaqeyn jireen yaa ninkan inta wajidaan waxa way madaxweynaha hadda oo Brazil asaga waxa way fikradu ku shaqeeyaan waa socialism way yaa ninkan waa taqaanaan mabalana Lenin iyo Trotsky way marka fikrada ay ku shaqeeyaan wax ku shaqeyn jireen waxa way waa communism way yaa ninkan waa taqaanaan mabalana Erdogan yaa Erdogan iyo xisbigu la jiro waxa way ku shaqeeyaan fikrad la dhaho Islamism yaa iyo conservative way asal laftiisa ninkan waa taqaanaan mabalana Maxamed Mursi madaxweyne hore oo Masar asaga iyo xisbigiisu waxa la jiray Ikhwaanul Muslimiin marka fikrada ku shaqeeyaan waxa way waa Islamism way marka xisbiyada adduunka oo dadweynaha soo hortaagay oo dadkii cod ka raadinaya xisbi walba fikrad buu ku shaqeeyay laakiin sidii ka jir Somaliland haway dadkii waxaas ma fahamsana sababta meeshan dawlad kama jirin ilaa 34 sano dhan meeshan dawlad kama jirto dadkii waxaas lama barin haddana waxa weeye xisbiyada laftigood oo u tartamay jagooyinka ayaga laftigood waxaas ma isticmaalaan waxa way iska ordayaan yaa marka xisbiyada marka hadaysan aysan haysan fikradahaas oo kale haddana haddii dadkii aysan fahamsaneen fikradahaas maxay xisbiyada markaas sameeyaan fikradaha ay xisbiyada ku shaqeeyaan waxa way waa qabyaalad way yaa marka xisbiyada oo halkaas u tartamaya inay ka helaan cod ka helaan dadweynaha dadka waxa laga soo maraya dhanka qabyaalada laga soo maraya yaa marka siyaasadii waa la qabyaaladaynaya marka inta waxa ka arkaynaa ninkan Erdogan la dhahayo oo dadweynihii uu soo horstaagaya oday beeladyadii buu isku soo arooriyo soo horstaagay ayaga buu weydiisanaya codkii meeshii la rabay dadkii inuu la hadlo oo wax ballan qaado si Trump amal kale uu dhaho waxaas idin sameynaya saas haday doortaan waxaas idin ka ballan qaadaya saas ma jirto oday beeladyada la tagaya waa hoogaa laaluusha la siinaya wuxuu dhahayaa ha igu shuba aniga yaa wax la iska dhahay maaha waa kan ba isagoo oday beeladyadii weydiisanaya inay odayaan anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan qaaliga ah waxaan codsanayaa beelweynta halkan joogta ka codsanaya in ay codka musharaxnimada madaxweynaha ay u taageerto marka siyaasadii markii la qabiilayo oday beeladyadii baa kacaya yaa oday walba dhowr oday imaanaya hadaan xisbigan beesha hebel xisbigan buu codeynaya kuwa kale imaanaya xisbigan beeshan buu codeynaya marka xisbiyada siyaasadii waa la qabiiliyay marka siyaasadda oo maanta Soomaaliland ka jirta waa mid qabiilaysan way marka waa ku anaaba odayadii oo maxaa la dhahayay xisbiyadii ka ballan qaadaya codkii in ayaga lagu shubo waa ku ana fiirsada
annagoo ah bahabaraadan iyo baha abakor hormoodkii baha samaroona in badan baanu kulmiye u soo shaqaynay 14 sano waan ka soo digaroganay waxaan u digaroganay xisbigani wadani waxaan leenahay baha samaroon ku soo dhawaada xisbiga wadani isbedel doonka ah xisbiga wadanina aanu si guugoyn uga qayb qaadanayno aanu soo galay una soo dhaweynayno madaxweynaha markaan waxaan leenahay war soo dhawaada nagu soo dhawaada xisbigan waa xisbi maxay ahayd runtii wax weyn inoo furi doona maanta aanu joogno gabilay inaanu si mugle u taageersanahay isbedelka ee ah baha samaroon ee gabilay degmada gabilay si mug iyo miisaanli ayaanu u soo dhaweynaynaa 6 bilood baan anagu horta saan ku maqnayn marka horena anu ilaa doorashadii hore wadani baan ahaa dadku de maanta xaggan u soo guureen maanta waxaan si mugle iyo miisaanle aan ugu soo biirnay xisbiga wadani ee hormuudka u ah bahabaraadan iyo bahabarabakor waxaanu garannay haddaan nahay reer gabilay weyntii baha samaroon iyo bahabaraadan oo soo dhaweynaysa xisbiga wadani oo habar jeclo isla qaadatay in la dhiso oo codka la siiyo musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo ku-xigeenkiisa in codka la siiyo madaxweynenimada sidoo kale waxaa beelaha habar jecla shirkoodii halkan ay isla qaateen in la soo saaro ururka kaah oo la gaadhsiiyo xisbinimo codka beelweynta sugeerawal codka ururnimada hoodo muuse cabdisiya hoodo cabdi muuse codka madaxweynaha muuse biixi cabdisiya habar jeclo waxay qaadatay oo tixgelisay codsigii beelaha garxajis ee aynu walaalaha nahay ina kaga yimi ayna ku weydiisteen codka ninka aan maanta inoo iman ee aan waxba ina weydiisan iyo ragga inoo dib jiray ee goobaha fara badan inoo ku yimi ayna dul fadhiistay waxba habar jeclo umay qaybin waxay tixgelisay ciddii u timi ee wax weydiisatay madaxweyne waxayna weydiistay oo xilka hayaana ma jiro beeshiisoo inoo timina waynu siin jirnay markay inoo timaadee inooma iman markasi halkaas ugu jeedeen waxaa weeye somalilan reer somalilan baasha doorashada la dhahayo weliba doorashada qof iyo cod la dhahayo waxaa weeye weli looma bisla yaa marka meesha somalilan waxaa ka jirta doorasho oo ah beel iyo cod qabiil iyo cod yaa marka doorasho runa maaha marka waxaa weeye arrintan waxaa weeye waa arrin waxaa weeye isbedel weyn u baahan wey